السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاجر السداد شيء وقفك بني آدم كأوسن جذن كريم لعكس طقط بحصة سداد دان شيء ما يبسن كرتين هذا هيستي إلهكم هذا الحمد لله عليه يعمها الله تعالى كو الصحة عافمات لما يبسن كر وحدثك توقفك بني آدم كان إنه عافمات كيس كوميو أو كوبابيو صول عقها لكن ما كل عقتي هلا inuu hadhow lacagtiisa oo dhan ku bixiyo si isu daaweyn lahaa haddii aad caafimaad qabto ilaahay ku mahadi tabaaraka wa tacaala qof bixiyo ma jiro lamana iibsan karo isbitaal lagu iibiyana ma jirto saddex jacaylka lama iibsan karo haddaad wax kasta bixiso qofku jecel ma iibsan kartid haddaad hesho qofku jecel marka alxamdulilah ilaahay ku mahadi haddaad qofaad jeceshahay ama ku jecel ilaahay ku mahadi sababtoo jacaylka lama iibsan karo meeqee qof kala raadinaya oo la sababtoo qofka kalaan jeclayn qofka qodobka saddexaad sacaadada waxa la yiraahdo lama iibsan karo sacaadadu waxa weeye in aad ku noolaato farxad iyo happiness happy aad ahaatid ma iibsan kartid dhismo weyn badan intaad gadato waa degi kartaa laakiin inuu gurigii dhismihii noqdo home meel guri ah oo degan oo aad ku raaxaysato oo sakan ah lama iibsan karo qodobka afraad waxa la raaxatul baal waxa weeye niyadaadu inay degan tahay oo qalbigaagu degan yahay oo qalbi qabowdahay lama iibsan karo walwalka iyo murugada dadka qaba ayaa og dhibaatada ay ku jiraan haddaad haysato qalbi deganaan niyadaadu oo degan qanaaco qabta allaha ku faraxsan ilaahay kuma had qodobka shanaad waxa la yiraahdo nazaahada waxa waaye waa daacadnimada iyo niyad wanaagga iyo alla darti inuu qofku wax u qabto lama iibsan karo laakiin qofkii ilaahay siiyo ilaahay buu ku mahadiyaa nicmo weyn baa la siiyey qodobka lixaad waxa la yiraahdo al-akhlaaq lama iibsan karo akhlaaqda wanaagsan haddii ilaahay uu ku siiyo akhlaaq wanaagsan ama uu dad akhlaaq wanaagsan la saaxiibkaala dhigo xiriir kula sameeyey alxamdulillah ama carruurtaada akhlaaq wanaagsan hadduu alla siiyey lama iibsan karo nabi maxamed baa ilaahay wuxuu ku manaystay oo uu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan baad ku dul sugan tahay nabi maxamedow fiiri akhlaaqda cajiib waay qofku inuu xumaanta ka leexdo oo wanaagga u leexdo oo uu xishoodo oo afkiisa ceshado oo uu dadka iska ilaaliyo oo carabkiisa dadka ka dhowrto oo dadka uusan ku mashquulin markaad dadka iyo ceebahooda ku mashquusho waxaad ogaataa ceebahaagii baad far waaweyn ku qoraysaa si lagugu mashquulo maalmahan waxaa badan xan dadka waa isxamanayaan subxaan allah waa isxamanayaan ilaahay wuxuu leeyahay walaa yaqtab bacdukum bacdaa war akhlaaqdii wanaagsanayd ee diiniga ahayd yeenan marra ka tegin qodobka waxaan sheegay kow sixada iyo xubbiga iyo sacaadada iyo raaxatul baalka iyo nasaahada iyo akhlaaqda wanaagsan waxaa qodobka toddobaad waxaa weeye alcilm tacliim lama iibsan karo cilmiga lama iibsan karo haddii wax allah ku baray waxaad ogaataa qofka dadka ugu qiimaha badan ee alla ugu dhow waa qofka cilmiga leh إلهي بقى يلي تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الله وحكليه وكبق السيدة نبتها الدومدي سكوع علماء سبحان الله كوع علماء مركا هداد علمك نبتوهنا والله كعبسي هداد علمك كستليغا أو قرآن كحفظه وتفسير كي تقانو وحديث كي تقانو وأحكام تي قرنيس ونحويدة قرنيس وواح كسا كتاب كسا أغرين كرتو لكن أنا الله كبق علمي مليه جاهل باتا نبي الله نوح مركو ألا عنانتي إنه ليس من أهلك إنه عمل صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وهذا العلم لنا ويدين إني أعيذك أن تكون من الجاهلين وحي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين حولو أنا إلهي وإدرسني هدان قالوا وأنا علمي أولهي جاهل بانا هدان معسيو يا حمان يا جاهل لمو يا عي يا حن يا تتكدر الشقين يا الدنيا تكون مشغول صنتهاي علمك الصاد هذا جاهل بانا قالوا كودنا من الاستعداد الذكاء مسكح هذا بدل اللي راح فهم هذا لما يبسكر
hadduu ilaahay ku siiya carruur fahmo badan ama fahmada uu ilaahay kuu furay ilaahay ku mahdi walaalayaal waxaa la yidhaahdaa qofku way sahlan tahay inuu biildin weyn ama guri weyn inuu iibsado laakiin inuu ku nasto oo ku dego lama iibsan karo way dhici kartaa inaad cunto qurux badan karsatid laakiin inaad cuntadii intaad cunto aad u haysid niyad aad ku cunto ma iibsan kartid waad arkaysaa dad ahay oo mateedka iga xiranoo cunto ma cuni karo way dhici kartaa inaad sariir qurux badan gadatid oo aad guriga sharaxatid oo dhigatid laakiin inaad ku seexato oo hurdo fiican hesho ilaahay baa bixiya lama iibsan karo waxaad ogaataa waxyaabo badan oo waxaa jira aan la iibsan karin haddaad nicmooyin kaa haysato ilaahay ku mahdi alxamdulilah dheh qofka haystana ku dhiirigeli inuu ilaahay ku shukriyo ogowna dhaqaalo kastood haysato waxyaabo aadan iibsan karin baad haysataa oo ilaahay kuu manaystay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu